asmalki Somaliland kartida intii lahayd dalka koru qadila hadeer kaabay noqdeen hadeer kaabay noqdeen hadeer kaabay noqdeen hadeer kaabay noqdeen munaasibadan kamiran kasbaday kaaba kasbaday iyadoo ay maanta si rasmi ah magaalada Burco uga bilaamatay tirinta kunka qof ee ururada siyaasadda Somaliland ayaa urur siyaasadeedka ka ah oo kamid ah 14 urur siyaasadeed ayaa magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer wuxuu ku soo bandhigay kumanaan kamid ah taageerayaasha uu ku leeyahay gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco kuwaasoo ay gudida diiwaangelinta ururada siyaasadda Somaliland ay ku tiriyeen isla markaana ay kor u dhaafeen kumanaan kun oo qof oo saaka isugu soo baxay hotel Martisore magaalada Burco waxaana goobtaasi ku sugnaa mas'uuliyiinta ururka kaasoo ugu horeeyo gudoomiyaha urur siyaasadeedka mudane Maxamuud Xaashi Cabdi xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale mas'uuliyiin ku helinaysay oo heer qaran ahayd waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay gudoomiyaha urur siyaasadeedka ee gobolka Togdheer xildhibaano mas'uuliyiin kale oo kamid ah mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka waxaanay u mahad celiyeen taageerayaasha gobolka Togdheer ee xuduudda taageero saaka ku soo bandhigay magaalada Burco waxaana kamid ah hadaladoodii ilaahay garabkiina ha galo guulaysta ballantii aynu qaadnay waynu ka soo baxnay dhiidhiibaa ku darteen waad ka farxiseen waftigii iyo gudoomiyihiiba waad ka farxiseen ilaahay ka farxiyo geedin dheer baynu gelaynaa oo ilaa talada dalka kursiga ugu sarreeya aynu gelayno sawsaas ugu xidhnaan mayno sawsaas ugu duubnaan maysaan saw intaynu kursiga taabanayno saaynu ka taaban maysaa sawtawtayna aad baan idinku mahadnaqayaa waan idinku oday noqonayaa gobolka haddii ilaahay ka dhigayaan iyo tiimkayga kale ee guddiyaduba aad baan idinku mahadnaqayaa aad baan runtii idinka mahad celinaynaa waana runtii waxa weeye idinku bogaadinaynaa sidaa laydin sheegay waxaad idinka muuqataa xamaasadda iyo runtii waxa weeyaan hordhaca guusha weyn ee soo socotaana waad muujiseen waxaa keliya in laga doonayaa uun si abaabulan oo runtii waxa weeye nadaamsan oo habaysan oo ilbaxnimadii iyo runtii waxa weeye xadaaradii guulka ahayd ee Burco lagu yaqaanay runtii inay muuqato baa la doonayaa Somaliland ha noolaato ha guulaysato aad baan idinku urur siyaasadeedka ha guulaysto urur siyaasadeedka ha guulaysto dhammaantiin ay guulaysto bismillaahi raxmaani raxiim dadweynaha reer Burco ee halkan isugu soo baxay waxaan uga mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee quruxda badan ee isugu soo baxeen aad baan idinku mahadnaqaynaa annagoo xildhibaanadii ay doorateen ee golaha wakiilada dareenkeena iyo codkeena iyo cudurteena iyo taageeradeena waa ka weeye aadna waa ugu faraxsannahay sida xamaasadda leh quruxda leh sharafta leh isxilqaanka leh ee aynu u soo baxnay ee aad halkan qoracda u taagan tihiin ilaahay subxaana wa tacaalaana khayr buu idinkaga jasaaysiin waxaan idinka mahadnaqaynaa isu soo bixiinna xamaasaddiinna dareenkiinna shucuurtiinna taageeradiinna iyo go'aankiinna aydun ku go'aansateen in aydun ka mid noqotaan dadka taageerayaasha u ah ee udubdhaxaadka u ah ee lafdabarta u ah urur siyaasadeedka runtii ururadu waxa ay ku kala baxayaan dadka diric keli ahaantii daleel guusha kama helo dadkaa geesi lagu yahay hadraawilo wuxuu yidhi ilaahay u naxariista isaguna wuxuu yidhi bulshadaa tixraac iyo talad iyo guddoon kale maanta awood baad muujiseen waan idigu soo dhiirannay reer Burco reermadoodii jaheennu madaxda u ahay aad bay u hadleen waxaynu doonaynaa inayn garab istaagno ururka soo maaha waxaan madaxweynaha Somaliland ugu hambaliyaynayaa go'aankii uu qaatay ee adka waxaan madaxweyne leeyahay waxaan dhinac taagan waa bulshadii Burco in yar baa ka maqan dabad laamiyadu waa xidhan yihiin madaxweyne waxaan kugu taageersanahay go'aankaaga aan ka laabashada lahayn inaad saddexdii xusbi ay ka mid noqdaan asxaabta cusub doorashaduna sida aad asxaabta u furtay ay ku socoto ururada cusub ayaanu taageeraynaa
gabagabadiina guddoomiyaha urur siyaasadeedka ka mudane maxamuud xaashi cabdi ayaa u mahad celiyey taageerayaasha urur siyaasadeedka ka ee gobolka togdheer ee kumanaanka kor u dhaafay waxaana ka mid ah hadalladiisii haddaynu nahay reerka haddaynu nahay ururka ka waxaynu nahay dad ku midoobay aragti siyaasadeed waxaynu nahay dad xambaarsan hami weyn oo ay dalkan wax kaga beddelaan horumar u horseedaan aynu ka samata bixinno saboolnimada iyo safka dunida saddexaad aragti baynu ku midaysannahay taageerayaasha ururka ka ee gobolka togdheer magaalada burco waan idiin mahadnaqayaa sida qiimaha badan ee aad shucuurtiinna u muujiseen xamaasaddiinna xilkasnimadiinna saaka waa ismuujiseen aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad waxaan leeyahay waynu guulaysanaynaa calaamadaha guusha waa la yaqaannaa mid waliba sansaan bay leedahay sansaanka guusha waa kaa dadkaa geesi lagu yahay waxaan leeyahay waynu guulaysanaynaa si dheer baynu maraynaa waynu dulqaadanaynaa waynu sabraynaa waa laynoo imanayaa waa layna tirinayaa saaka haddaydaan aragti aaminsanayn bacadkaa iyo cadceeddaa umaydaan adkaysateen ilaa lixdii saakaad joogteen soo sidaa ma aha sidaa guul baan idiin rajaynayaa aad baad u mahadsantihiin tigaadiyadaa laacdaa aad baad u mahadsantihiin ayaa liciga ducaali bukhaari sahan TV magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer